caqabadaha taagan waxa sabab waa Jawaari waay waxaan qabnaa haddaan nahay bulshada rayidka ah Jawaari xilligiisu waa dhamaaday 100 sano ku dhow yahay waa xilligii loo talin lahaa waxaa fiican Jawaari inuu u dhaafo tiimka hadda jiro ee hawsha wato waxaan ku dhalinayaa waxa weeyaanba 92 sano jira waa xilligii hadda waxa waa beeshinku ahaa dhalin badan markii qofku mar walba daayo ku korto meelaha fikirkiisa iyo maskaxdiisana asfal saafi waa si yaraanaya waa si hooseynaya marka sidaa daraadeeda Jawaari waxaan leenahay gudoomiye soo shaqeeya tahay aragtiyaada iyo ra'yiga lagama dhamo siyaasadda waxaad noqotaa la taliye siyaasadeed noqo hadda u baneey tiimka hadda soo socdo oo wada shaqeynayo waxaan ka codsanaynaa inaad u banaysid oo asiis fursadooda asiisid maadaama ay hadda kaa hor yimaadeen inaad hadda qori qaadato adoo daaga leeyahay waxa xidmad keeni mayso marka waxaan leeyahay bulshadiina waxa weeyaan waa isha waa shaqaysan laadahay wadada waa la mari laayahay jeedka waa go'an yihiin dhayaha taagan oo dagaal baa la filanayaa waxaasoo dhan adiga aabii waxaa taxalin lahaa marka maadaama arrintaa daraadda ay u dhacayso waxaan soo jeedin lahaa inaad u fududayso adoo u naxaayo bulshada 8 sano ama 5 sano oo ahayd gudoomiyaha adoo u naxaayo inaad tiimka u banayso Jawaari horta wuxuu ahaa nin oo muddo soo shaqeynayay ilaa iyo 5 sano maanta la taagan yahay waxaan jeclaan lahaa Cabdullaahi ahaan Jawaari in uu xilka isaga tago nalkeena nin cusub sababta u dhahay taasna waxay tahay nimankan maanta wadanka maamulayo waan aragnaa waxay sameynayaan waxaan rabnaa ninay ogol yihiin halkan sidaan ayaana nala boodboodaan waxay rabaan ha sameeyaan at least waxa waay meel aan gaarina laakiin maalin kasta hadii ay noqoto nin cusub hala tuur ninna hala keeno waxa waay meesha horumar fiican laga gaarayo marka hadii ay israbaan isjecel yihiin waxa waay xoogaa uu horumar inoo keenay marka waxaan u arkaa arrin ku haboon Jawaari meesha inuu isaga tago nin kale oo iyaga fahmayaan keensadaan waana mahadsantiin gudoomiye Jawaari waxaan leenahay maadaama qof shaqadan hore u soo qabtay aad tahay waana ku amaanan tahay sida wanaagsan shaqada aad u soo qabatay aan ugu soo dhawaaqay hadda waxaan leenahay chance-ka si dhalinyarta daayirta chance-ka si sidii ugu faa'iideystaan ayagana wax ay ku soo kordhiyaan waa dareemeynaa dadka baarlamaanka iyo maanta xukuumadda iyo barnaamijka haysta waxaan ka dareemeynaa magaalada gudaheeda ka dareemeynaa cabursanaanta shacabka lagu hayo wadooyinka xiran barnaamijkan iyo intaba waxa keenaya waxa way mooshinka laga keenay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa xaqiiqdii ah gudoomiyaha baarlamaanka mooshin waa la keenaa isaga waxa ka horeeyay wasaarada ka horeeyay dad badan ka horeeyay waxa loo baahan yahay asaga laftirkiisa inuu u hoggaansamo xildhibaanada baarlamaanka inuu u hoggaansamo mooshinkaasna uu soo dhaweeyo intaas aan leenahay shacabaan annaga waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka sidoo ugu dhaqsiyaha badan inuu isku cadili doonaan rajaynaynaa duulayda culayska shacabka saaran inuu ka qaado tanaasulaad tiro badan uu sameeyo maadaama 225 xildhibaan ay ka keeneen mooshinka waxaan jecelnahay in sida asaga oo baalkii maadaama odayna uu yahay oo 80 jira inuu shacabkan u damqado oo duulayda ku roonyahay tanaasul uu sameeyo waxaan ugu baaqaynaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu iscadilo haddana shacabka Soomaaliyeed